shacabweynaha ku dhaqan degmada Garadag iyo galbeedka gobolka Sanaag oo telefishinka sahan la dhex qaaday mikrofoonka ayaa golaha guurtida ku bogaadiyay in komishanka doorashooyinka iyo saddexda xisbi qaran ay la qaateen muddo kordhinta loogu talagalay inay qabsato doorashada golayaasha deegaanka iyo wakiilada oo ku beegan 13 bisha shanaad ee 2021 taasi oo xal buuxa laga gaaray maalinnimadii shalay qabsoomida doorashada waxaana ka mid ah hadalladoodii sida tan وهم بليانين دورشة إن لقبته كم ناسم كهيد يقولها جورتدو سودة شيء وهم بليانين إن قراها وكيل هذا قراها ديجان كوا وقت مناسب الله ترى قرين لقبته ونكون بليانين. أفضلوها بليانين يا قراها جورتدا أقبشين متكررينتا صوص عراي مدحوينه لقبته كوبي صدق بش سنوات waxweeyaan doorashadii waxaan leeyahay aad iyo aad madaxweyne u mahadsan tahay iyo waxweeyaan go'aanka ay la qaadatay halkan waxaan ka hambalyeeynaa madaxweynaha qaranka golaha guurtida baarlamaanka sida fiican muddo kordhinta u sameeyeen muddadii ay ku afjareen insha Allah taala ay doorashadaas ku dhacdo aad iyo aad u soo dhaweynaa mar labaad iyo saddexaad maanta taageerina ama hambalyeeynaa doorashadii la caymay golaha guurtida ku raacday دولة حسبية كوي شيء نعدو كوي سنة بيش السنوات هذا الناس شعبينا تكمل ذكرنا ونتهاجر الناس الحسبية يو كأنا كي كصوب هاي كويش كسي عجيب دورشنا ما أنت هذا عيسو بيش السنوات كوي سنة كذا ونهم برينا هذا دول شلوينا وحنكروا هالكن بقى وتري شعبينا تكمل ذكرنا الكستي كورنولي لأن سنة كنا نلصوا بحنا كل ديجان تيجي ما دابا إنه لا تستمر تقولي كسولان si ay wax inagu qabtaan kula deegaantayna baan doonayna inay shacabweynuhu doortaan maadaama aan heer aan sanadkan ku codcodaynayno waxa uu aqoon karti iyo wax noo qabanaya oo wali waa inuu badano dhalinyaro ahaan maadaama aan aragno dadkii waaweynaa inaanay waxba qabanayn sanadkan doonayna inaan la soo baxno kula deegaantayna leh wali dhalinyaro oo wali hablana ku jiraan si magaalooyinka kale dowladda Soomaaliland habla iyo ku jira sanadka waxaan doonayaa in garada golaha deegaanka soo baxaan in habla iyagu soo baxaan maadaama ay doonayeen la tartamo degmooyinka magacaygu waa Maxamed Cali Suudi ku sugan degmada Garadag wallahi aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in golaha guurtidu ay dib u ansixiyeen guddigii hore go'aankoodii komishanka doorashooyinka qaranka dowladda Soomaaliland go'aankoodii ahaa in ay doorashadu dhacdo كويس وتكريشنات لبض كل يوم لاتنك هذا رأي جرها جورتو دب واسعين آريات من وحسن هاي وهي وحنايا هاي جرها جورتو هكذا قيسائية وحوية برمرك تمريد السومالان يو شو تناسل كتمريد السومالان يو يعني سيدي أي بشيء السومالان أوجع لها برمر أنا وخلاف يو خلخلة عام تبوكين آريات من وحسن هاي حنايا هاي جرها جورتو أبد ما هسنتين رهانتي كل السنوات بحرجينيا إذا أنا كأدي هذا يوم عسين مجموعة السمانة. وحصل دوينيا أنسمع لي مثال لو صار دوينيا أنا واحد كان كقرضك الأنير تدي يو سكول دمو استرام وحنسمع لي مثال لو صار دوينيا قان كايسو صارين كلها جورسدو سكول سرقويين الله دارشة سكول كم دارشة سكول كم سكول سرقويين قان كي كمشين كدارشة ينكا يوغان كحسبيات عاديات بنو سو دوينينا كديغان كوبي صدق بشمي عاديات بنو سو دوينينا ان شاء الله تعالى waxana ka soo bixi doona oo lagu soo dooran doona qaasanta degmadayadani aan u qorsheynay dad u tayaysan inay qaranka wax u qabtaan oo jamhuuriyadda Soomaaliland wax u qabtaan oo ay ka go'an tahay Soomaalilandnimadu gobolnimadu iyo dadnimadu ay ka go'an tahay baan insha Allah ta'ala ayadana keeni doona aad iyo aad baan u soo dhaweynaa go'aanka waa isu tanaasulka iyo midnimada lagu yaqaanay jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dadkeeda waxa weeye nabadgelyada iyo barwaaqada iyo inta waxa weeye aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland oo hogaaminayo gudoomiye Salabaan Maxamuud iyagu waxaan adana shacabka Garadag odayaasha waxaanu taageeraynaa oo yiri doorashada waqtigeedii loogu talagalay ayaanu ka dhigaynaa ee isku raaceen isaga iyo labada shacab iyo odayada guurtiga iyo labada xisbiya kale ee mucaaradka ah sidii adana hadaan reer Garadag waayeelkiisii waanu taageersanaa doorashada in la qabto waqtigeeda
bisha shanaad taageeradii madaxweynuhu codsigii madaxweynuhu u soo jeediyey golaha guurtiga guurtiguna ay guddiga u saareen guddiguna ay soo garteen guddidii komishinkii qaranka arrinkii ay maalintii hore soo jeediyeen annaguna waannu taageeraynaa waannu ku hambaliyeynaynaa waannu ku raacsannahay in